haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaya waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn warkaas in laga jaraya aaminsan waa ka jaraysiin ya dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra'iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasan ku baaqaa ummadda Soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinay laakiin dawladda maanta kaamirada iga duubayso Soomaali isku sheega waxaan qiraa inayna muslimiin ahayn laanno kitaabka Ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka marqaataan inuu xukumaan sida daraadeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiin ah laakiin Soomaaliya gaala joogto meeshan jooga maanta anu godka jilcu waa ilaahay anu aqoon uma leh Ilaahay baa iga cilmi waa sida asxaabtiina qaar kamid ka xogmiya dadka jooga waxaan ka aaminsanahay gaala inay yihiin dawladda bisan ba ula jeeda dawladdu inay gaalata iyo wixii hoostago la hal maal la shaqeeyo diinta ya gaalada lagu jihaada kufaarta wadan kastay ka timaado murtadiinta lagu jihaada calal uusta lagu jihaada mid kasto biista lagu jihaada saasa aaminsanaani meeqa sana jeclaadide كائن ما هن أدواب وشقيني سو واحد وعيقل وسميني سدنا يرضى دعذ ير والتشكيل نيسي إلى مثل سنة كل كسو بيرتفع سؤال سو كلا كجوابي كرا تضبط سنة أيها هوشة كلها محاط بدن يسمى درس دينا برنا أي ما بدنا أنت عندك كبر لكن إلهي سبحانه وتعالى مركو يكرسيه وبريجرة تدك دينته dilkaas waxa soo dhan wada baabi'iyo maxaad markaa kalaha wadanka u haysan ay ku barto maxaa ka aaminsantaa wadanka waxa rabnaa kitaabka Ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaqudka dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diin lagu xukumo way ma tahay Ilaahay wuxuu faqtalo war madaxweyne farmaajo aan ugu xukumo dooro waxana la xukumo diin islaamka lagu xukumo hadaa laakiin diin islaamka lagu xukumaynin أنا مبدئيا أنا كلامنا ديار مني بس هنا قطع الدين أمنا قواعس سداس كذا دعسي هو يلمه هذه مساكين مسلمين أنا ودم بكم جني فكر كي كان لقمة دبعته إلا كفار ما هن أنا كبعض من صوماليا مسلمة دينا أنا سكاهم سنة هذا كلام كاهم سنة مرتي هيك دولة لا تاجر أو دولة ما ماركين دولة لا تاجر ماركين أنا دولة الإسلام كان تاجيرة دين الإسلام كقتلس حكم الإسلام إيش اسمه الدولة ده سوحة دولة الفدرال كاليرة مقعه هو قديلي ها أمانة أسقنا أنها ويلي دولة الفدرال قيار اللي هذا اللي يوش كانوا والشاهد ميه واحد قيار اللي هو يا maxaan karba fasiradeeda inta arkaa way igu aad dawladda ridada daana aaminsaneyn ma fikir dagaal ma la igu soo qabtay dawladda ridada daana aaminsaneyn aqeedadeeda ya may iimaankaas wali ma helin ilaahay baan ka rajeynaa ilaahay inuu arsuqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maanta kale aad u haboon tahay inaan isku qarxiyo ay waana haysan qaraxa ku cadeynaysaa maxaa ku dilay gaala nacayb baa iga batay gaalada aad u nacba iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukuntamay dadka isku qarxinaysan ay wada gaaliyihiin ya cadeen uga haysataan ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa uga haystaa baan ku yiri كلمة لا إله إلا الله معناها يضابر تدحق كتاب التوحيد أو قرآن كتفسير كيس ووضع التوحيد أضال عتيد واحد أوغانا يسا حكمك أوليها قفك مسلم كنفتيس ينفتك سهر جدو واحد اللي تقول واقعنا محاكو بينين كرتان مركا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم آيات دحيسا محاد عدينا أو آد أوغا جنبانيسان أوغا لحن وحا أوغا جنبانا وحي تاي nin mu'mina ma badilaya baan ugu mu'miniin ma aan dawladda ridada haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaya waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn warkaas in laga jaraya aaminsan waa ka jaraysiin ya dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra'iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasan ku baaqaa ummadda Soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinay laakiin dawladda maanta kaamirada iga duubayso Soomaali isku sheega waxaan qiraa inayna muslimiin ahayn laanno kitaabka Ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka marqaataan inuu xukumaan sida daraadeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiin ah laakiin Soomaaliya gaala joogto meeshan jooga maanta anu godka jilcu waa ilaahay anu aqoon uma leh Ilaahay baa iga cilmi waa sida asxaabtiina qaar kamid ka xogmiya dadka jooga waxaan ka aaminsanahay gaala inay yihiin
dawladda bisaan ba ula jeedaa dawladdu inay gaalo tahay iyo wixii hoostagoo la halmaalo la shaqeeyo diinta yaa gaaladaa lagu jihaadaa kufaarta waddan kastay ka timaado murtadiintaa lagu jihaadaa calal-uustaa lagu jihaadaa mid kasta bi'astaa lagu jihaadaa saasaa aaminsanaha aniga meeqa sanaa jeclaad idheh maahan hadda waaba u shaqaynayso waxaad wacyigelin u samaynaysa dhallinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysay ilaa goormee ku soo beertay haa su-aashaasoo kalaan ka jawaabi karaa 7 sano ayaad hawshaa ku dhex jirtay maxaa qabanaysa muddadaas diinaan baranayay dadna waa baraysa ma badnayn intaan dadka bara laakiin ilaahay subxaana watacaala mararka i karsiiyo waa bari jira dadka diinta dilkaasi waxaasoo dhan wada baabi'iyo maxaad markaa waddanka u haysaan inay ku barto maxaa ka aaminsantaa waddanka waxaan rabnaa kitaabka ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaquudka iyo dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeenna diina lagu xukumi waayo ma taha ilaahay wuxuu yidhi faqtaluuhu war madaxweyne farmaajo ha nagu xukumo duuraba hana la xukumo diinta islaamka na lagu xukumo haddaan laakiin diinta islaamka na lagu xukumaynin anagu mabda'ayna inaan ka laabano diyaar uma nihin bisay naga tahay diin uma naqan waxaas sidaas ka dhaadhacisay hooyo ilmaheedii masaakiin iyo muslimiin anugu dembi kama gelin fikirkaygaan laguma dhibaatay ilaa kufaar ma ahan macnuu anigaba haddan soomaaliya ah muslimad inaan ahaan iska aaminsana adoo kalean ka aaminsana murtid eegata dawlad la taageero caawa dawlad ma arkin dawlad la taageero ma arkin ani dawladda islaamkaan taageera diinta islaamka ku talis xukun islaam meeshaas ma yaal dawladdaas waxaa leedahay dawladda federaalka la yidhaha magaca uga dheeli ha ammaanin ammaana u sugnaan ha u yeeli dawladda federaal khiyaaray leedaha la iigu sheega anugu shaahid ma ihi waxa khiyaara leho yaa maxaan ka rabaa fasiraadeeda intaa arkaaba igu aado dawladda ridada haddaana aamisnayn ma fikir dagaal maa laygu soo qabtay dawladda ridada haddaana aamisnayn caqiidadeeda yaa may iimaankaas weli maba helin ilaahay baan ka rajaynaya ilahay inuu igu arsuqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maantoo kale aad u habboonta halaa inaan isku qarxiyo ee waana haysan qaraxa gaalo nacayb baa iga batay gaalada aad u necbaa iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilahay ku xukuntamay in dadka isku qarxinaysaan ay wada gaala yihiin yaa cadeen uga haysataan ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisaan uga haystaa baan ku yidhi kelimada laa ilaaha illa allah macnaheeda eedaa baratidu dhex gashay kitaabu tawxiid oo qur-aanka tafsiirkiisu waa wada tawxiida aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka uu leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta ka soo horjeedo waxa lid ugu waa qanaanugu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'u jahannama aayadda dhahaysa maxaad cadeyna oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxaa uga gambanahay waxay tahay nin mu'mina maba dilayaba anugu mu'miniin ma ahan dawladda ridada haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaya waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn warkaas in laga jaraya aaminsan waa ka jaraysiin yaa dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra-iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasaan ku baaqaa ummadda soomaaliyada anigu ma wada gaalaysiinaye laakiin dawladda maanta kaamirada iga duubayso soomaali isku sheega waxaan qiraya inayna muslimiin ahayn la'annahu kitaabka ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay kaamar qaataan inagu xukumaan sidaa daraaddeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiina laakiin soomaaliya gaalaa joogto meeshaan jooga maanta anugu godka jilci waa ildhahay anugu aqoon uma lihi ilaahay baa iga cilmina waa sida asxaabtiina qaar ka mida ka xugmiya dadka jooga waxaan ka aaminsanaa gaala inay yihiin dawladda bisaan ba ula jeedaa dawladdu inay gaalo tahay iyo wixii hoostagoo la halmaalo la shaqeeyo diinta yaa gaaladaa lagu jihaadaa kufaarta waddan kastay ka timaado murtadiintaa lagu jihaadaa calal-uustaa lagu jihaadaa mid kasta bi'astaa lagu jihaadaa saasaa aaminsanaha aniga meeqa sanaa jeclaad idheh maahan hadda waaba u shaqaynayso waxaad wacyigelin u samaynaysa dhallinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysay ilaa goormee ku soo beertay haa su-aashaasoo kalaan ka jawaabi karaa 7 sano ayaad hawshaa ku dhex jirtay maxaa qabanaysa muddadaas diinaan baranayay dadna waa baraysa ma badnayn intaan dadka bara laakiin ilaahay subxaana watacaala mararka i karsiyo waa bari jira dadka diinta
dilkaasi waxaasoo dhan wada baabi'iyo maxaad Waan ku marka faraxsan. talaha waddanka u haysaan ay ku garto maxaa ka aaminsantaa waddanka waddanka waxaan rabnaa kitaabka ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaquudka iyo dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diina lagu xukumi waayo ma taha ilaahay wuxuu yidhi faqtaluuhu war madaxweyne farmaajo aan ugu xukumo duuraba hana la xukumo diinta islaamka na lagu xukumo haddaan laakiin diinta islaamka na lagu xukumaynin anagu mabda'ayna inaan ka laabano diyaar uma nihin bisay naga tahay diin uma naqan waxaas sidaas ka dhaadhicisay hooyo ilmaheedii masaakiin iyo muslimiin anugu dembi kama gelin fikirkaygaan laguma dhibaatay ilaa kufaar maahan macnuu anigaba haddan soomaaliya ah muslimad in ahaan iska aaminsana adoo kalean ka aaminsana murtid eegata dowlad la taageero aawe dowlad ma arkin dowlad la taageero ma arkin ani tee u taqaani dowladda islaamkaan taageera diinta islaamka ku talis xukunka islaamiga shariica islaamiga xukun islaam meeshaas ma yaal dowladdaas waxaa leedahay dowladda federaalka la yidhaha magaca uga dheeli ha amaanin amaana u sugnaan ha u yeeli dowladda federaal qiyaaray leedaha la iigu sheega anugu shaahid ma ihi waxa qiyaara leho yaa maxaan ka rabaa fasiraadeeda intaa arkaaba igu aado dowladda ridada haddaana aamisnayn ma fikir dagaal maa laygu soo qabtay dowladda ridada haddaana aamisnayn caqiidadeeda yaa may iimaankaas weli maba helin ilaahay baan ka rajeynaya ilahay inuu igu arsuqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maantoo kale aad u habboonta halaa inaan isku qarxiyo ee waana haysan qaraxa maxaa marka ku cadaynaysaa maxaa ku dilay gaalo nacayb baa iga batay gaalada aad u necbaa iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukuntamay yaa ku daliiliyay in dadka isku qarxinaysaan ay wada gaala yihiin yaa cadeen uga haysataa ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisaan uga haystaa baan ku yidhi kelimada laa ilaaha ila allah macnaheeda eedaa baratidu dhex gashay kitaabu tawxiid oo qur-aanka tafsiirkiisu waa wada tawxiida aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka uu leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta ka soo horjeedo waxa lid ugu ewaaqaan anugu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'u jahannama aayadda dhahaysa maxaad cadeyna oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxaa uga gambahanahay waxay tahay nin mu'mina maba dilayaba anugu mu'miniin ma ahan dowladda ridada haddaan ku baaqo dowladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaya waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhammayn warkaas in laga jaraya aaminsan waa ka jaraysiin ya dowladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra-iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasaan ku baaqaa ummadda soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinaye laakiin dowladda maanta kaamirada iga duubayso soomaali isku sheega waxaan qiraya inayna muslimiin ahayn la'annahu kitaabka ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka amar qaataan ay nagu xukumaan sidaa daraaddeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiina laakiin soomaaliya gaalaa joogto meeshaan jooga maanta anugu godka jilci waa ladhahay anugu aqoon uma lihi ilaahay baa iga cilmila waa sida asxaabtiina qaar ka mida ka xugmiya dadka jooga waxaan ka aaminsanaa gaala inay yihiin dowladda bisaanba ula jeedaa dowladdu inay gaala tahay iyo wixii hoos tagoo la halmaalo la shaqeeyo yaa gaala waa lagu jihaadaa kufaarta waddan kastay ka timaado murtadiintaa lagu jihaadaa calal-uustaa lagu jihaadaa mid kasta bi'astaa lagu jihaadaa saasaa aaminsanaha aniga meeqa sanaa jeclaadi dheh maahan hadda waad u shaqaynayso waxaad wacyigelin u samaynaysaa dhalinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysay ilaa imise sanaad goormee ku soo beertay haa su-aashaasoo kalaa ka jawaabi karaa 7 sano ayaad hawshaan ku dhex jirtay maxaa qabanaysa muddadaas diinaan baranayay dadna waa barayska ma badnayn intaan dadka bara laakiin ilaahay subxaana watacaala mararkuu i karsiiyo waa bari jira dadka diinta dilkaasi waxaasoo dhan wada baabi'iyo maxaad Waan ku marka faraxsan. talaha waddanka u haysaan ay ku garto maxaa ka aaminsantaa waddanka waddanka waxaan rabnaa kitaabka ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaquudka iyo dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diina lagu xukumi waayo ma taha ilaahay wuxuu yidhi faqtaluuhu war madaxweyne farmaajo aan ugu xukumo duuraba hana la xukumo diinta islaamka na lagu xukumo haddaan laakiin diinta islaamka na lagu xukumaynin anagu mabda'ayna inaan ka laabano diyaar uma nihin bisay naga tahay diin uma naqan waxaas sidaas ka dhaadhicisay hooyo ilmaheedii masaakiin iyo muslimiin anugu dembi kama gelin fikirkaygaan laguma dhibaatay ilaa kufaar maahan macnuu anigaba haddan soomaaliya ah muslimad in ahaan iska aaminsana adoo kalean ka aaminsana murtid eegata dowlad la taageero aawe dowlad ma arkin dowlad la taageero ma arkin ani
tee u taqaanid dowladda islaamkaan taageera diinta islaamka ku talis xukunka islaamiga oo shariicada islaamiga xukun islaam meeshaas ma yaal dowladdaas waxaa leedahay dowladda federaalka la yidhaha magaca uga dheeli ha amaanin amaana u sugnaan ha u yeeli dowladda federaal qiyaaray leedahay la iigu sheega anugu shaahid ma ihi waxa qiyaar leho yaa maxaan ka rabaa fasiraadeeda inta arkaaba igu aado dowladda ridada haddaana aamisnayn ma fikir dagaal maa laygu soo qabtay dowladda ridada haddaana aamisnayn caqiidadeeda yaa may iimaankaas weli maba helin ilaahay baan ka rajaynaya ilahay inuu igu arsuqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maantoo kale aad u habboon tahay halaa inaan isku qarxiyo ee waana haysan qaraxa maxaa marka ku cadeynaysaa maxaa ku daliil gaala nacayb baa iga batay gaalada aad u necba iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukuntamay yaa ku daliiliyay in dadka isku qarxinaysaani ay wada gaala yihiin yaa cadeen uga haysataa ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisaan uga haystaa baan ku yidhi kelimada laa ilaaha ila allah macnaheeda eedaa baratidu dhex gashay kitaabu tawxiid oo qur-aanka tafsiirkiisu waa wada tawxiid aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka uu leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta ka soo horjeedo waxa lid ugu ewaaqan anugu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'u jahannama aayadda dhahaysa maxaad cadeyna oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxaa uga gambahanahay waxay tahay nin mu'mina maba dilayaba anugu mu'miniin ma ahan dowladda ridada